wafdi culus oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyay dufcadii ugu horeysay ee ka qalinjabisa jaamacadda Timcadde ee magaalada Gabiley oo lagu qabtay hoolka jaamacaddaasi. wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa subaxnimadii hore saaka ka soo bahoolay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. inta aanu soo gaarin wafdigaasi gudaha magaalada Gabiley ayaa waxa maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo waliba dadweyne aad u tiro badan kaga hortageen kantaroolka galbeed ee Caabudlaa, waxaana loo soo galbiyay dhinaca magaalada Arabsiyo halkaasi oo xariga ka jaray gebyanka weyn ee dooxa Arabsiyo. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland halkaasi kala hadlay dadweynaha ku dhaqan magaalada Arabsiyo. inta kadibna waxa wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland loo soo galbiyay caasimadda gobolka Gabiley ee magaaladani Gabiley, halkaasi oo ay dadweynaha reer Gabiley si diiran ugu soo dhaweeyeen. waxaana ka qayb galay qalinjabinta jaamacadda Timcadde. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Timcadde University jaamacadda Timcadde ay ardada faraha badan ee ka qalinjabinayso inaan ka soo qayb galo aad baan u faraxsanahay. waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay oo jecelayn halkan mahadbalaadha ka cesho ilaa intaanu gobolka soo gallay sidii caadada u ahayd, sidii dhaqanka u ahayd, sidii taariikhda u ahayd. gobolka kan aad iyo aad baa naloogu soo dhaweeyey. gobolka Gabiley aad baa naloogu soo dhaweeyey. waa gobol taariikh iyo magac ku leh, weligiina ku lahaa ilaa halkii waqtigii taariikhdii halkan lagu jiray, oo door weyn ku leh wax soo saarka dalka, oo wax door weyn ku leh tacliinta, oo door weyn ku leh wax ka qabashada dhinac kasta oo qaranka difaaciisa iyo horumarkiisa ku saabsan. wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maro Samsam Cabdi Aadan iyo gudoomiyaha jaamacadda Timcadde Cismaan Aw Yuusuf Magan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. jaamacadda daada yar ee maanta 103 arday ka qalin jabinayaan inaynu joogno maanta oo ka qayb galno farxadda. maanta waa maalin farxadeed, wax siyaasadii waxba ka hadli mayno. waxaanu leenahay hambaliyo ilaahay haydin la kulmiyo wax khayr qaba jaamacadda aad dhamaysateen. maanta waxa ku jira 456 arday oo boqol iyo saddex ka mid ah ay maanta qalin jabinayaan. macallimiinta hadda dhigtaa waa 40 macallin oo badidooda ay sitaan shahaadooyinka laga master degree oo PhD. fursadiisa jaamacaddu arday danyar ah oo aan awoodeyn inay gobollada kale waxbarasho jaamaca u doontaan waxay fursad waxbarasho siisay shaqaalihii dhaqtarada oo ilaa tiro aan gaadhaysa 20 arday ay hadda wax bartaan, general nursing ay bartaan. waxaa kaloo iyaduna jirta in 6 ka mid ah ardayda jaamacaddu ay ka mid noqdeen xildhibaanada golaha deegaanka. dibadana imanka hadda wax loo yaacay ma jiro. haddee waxaad arkaysaaba raggii aynu dirsanay lacagta inoo keeni lahaaba halkana u soo shaqo tegeen imanka waa ogtihiino waa yar xabanaayo. marka innagaa laynoo soo socdaa. gobolkani waa gobol qaniya, jaamacadaheenna waynu xoojin. maanta kow idiina horumar Gabiley baa sheeg badeecadda iyo waxaan dukaamada yaalleela ilaawa waa wax wada ku meel gaaraynu u dhoofiyeyna waddanno kale oo ina soo maraya noqday in maanta ilaahay kugu simay inaad shahaadooyin guddoonsiiso daayartii aad u dagaalantay u halgantay. alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow degmada Gabiley mar labaad. mashaariic fara badan oo noo furta ku soo dhawow. kuwo aad dhagax dhigi doonto ku soo dhawow insha Allah. kuwo aad soo kormeeri doonto oo socda ku soo dhawow baan ku leenahay madaxweyne. waa maanta waa maalin weyn oo taariikhiya oo taariikh u leh daayarta qalinjabinaysa maanta gobolka Gabiley. madaxweynaha taariikh weyn u leh daayarta oo ah kuwii jaamacadda. dufcadani ayaa noqonaysa dufcadii ugu horeysay ee ka qalinjabisa jaamacadda Timcadde ee magaalada Gabiley, taasi oo noqonaysa dufcadii ugu tirada badneed ee abid ka qalinjabisa jaamacadaha dalka Soomaaliland. dufcadani oo ka koobnayd 103 arday. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba, Samsa TV, Gabiley.